بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان آريدكوغا هينانا waxaa ka mid ah Israa'iil waxaa caawa ka taagan dood iyo khilaaf adag oo ka dhashay sii deynta maxbuuska Amerikaan Israa'iiliga ahaa iyadoo Trumpna shuruud uu ku xiray imaanshaha in uu yimaado Israa'iil inta booqashada bariga dhexe uu ku jiro haddaba maxay tahay shuruudaasi xog baan idinkaga haynaa maxbuuskii la sii daayay ee Israa'iiliga iyo Amerikaanka ahaa maanta oo markii dib ugu laabtay Israa'iil caawa arrin fadeexa ah ku sameeyay Netanyahu maxay tahay arrintaasi sheeko cajiib ah ayaan idinkaga haynaa Generaal Israa'iiliya ayaa isna digniin ku bixiyay halis ku soo fool leh Israa'iil taas oo ka imaanaysa gudaheeda wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan idin haynaa iyadoo Israa'iil mar allaalay markii la soo daayay maxbuuskaasi duqeyn ka bilowday marayka Gaza madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharax oo ku tala jira in magaalada Dimashq uu ka taago dhismo uga magac darayo Donald Trump maxayse tahay ujeedada uu ka leeyahay sheeko xiiso leh oo arrintan ku aadana waynu eegi doonaa midowga Afrika oo si dadban ugu eedeeyay Imaaraadka Carabta faragelin uu ku hayo dalka Suudaan Erdogan oo ka hadlay qorshe uu ku martigelinayo kulanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo digiisa dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay ma diyaarad baa mise waa qasri shaki yuusan kaa gelin waa diyaarad qiimaheedu ku dhow yahay $1 bilyan Maraykanka dowlad carbeed ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxay u siinaysaa hadiyad maxay tahay sheekadan waa wadankee warbixin xiiso leh baan idinkaga haynaa amuurtan dhamaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaanu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qodaan iyadoo dagaalkan imika galay sanadkiisii saddexaad uu dardar galay isla markaasna la sheegayo in dagaalo culus ay ka socdaan gobolada Darfur iyo sidoo kale xogaga RSF oo duqeymo ka geysanaya magaalada Port Sudan ayaa saacadihii la soo dhaafay ururka midowga Afrika wuxuu si adag uga digay inuusan aqbali doonin wax faragelin shisheeyaha oo lagu sameeyo arrimaha gudaha ee dalka Suudaan waxaana tani ay imaanaysaa iyadoo eedamo loo jeediyay dowladda Imaaraadka Carabta taas oo ah inay hub siisay dagaalyahanada RSF ee ka dagaalamaya dalka Suudaan hadalka ururka midowga Afrika ayaa yimid kadib markii dowladda Suudaan xiriirka dhanka diblomaasiyadda ay u jartay Imaaraadka Carabta toddobaadkii hore iyadoo ku eedeysay inay hub siiyeen RSF iyadoo markaan la sheegayo ciidamadaas inay dagaal kula jiraan militariga rasmiga ah ee dalkaasi Suudaan hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda Imaaraadka Carabta in ay jabinayso cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ee saaran dalka Suudaan iyagoo hub siiyay RSF eedamahaasi Imaaraadku waa ay beeniyeen waxayna ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raad toona lahayn gudoomiyaha ururka midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf ayaa muujiyay mowqifka ah in aan la ogolayn faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee dalka Suudaan taas oo ka imaanaysa dibadda wuxuuna yiri mowqifka gudigu waa in wadamada xubnaha ka ah ay yihiin dawlado madax bannaan midowga Afrika ma aqbali doono wax faragelin ah oo lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Suudaan isagoo hadalkiisa si aan baqaadaya wuxuu yiri ma taageeri doono wax faragelin ah oo lagu sameeyo xiisadda Suudaan si kastaba ha ahaatee Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu ka gaabsaday inuu faalla ka bixiyo doorka suurtagalka ah ee Imaaraadka Carabta wuxuuna yiri taas ma aha shaqada midowga Afrika Suudaan ayaa eedeysay Imaaraadka waa in Suudaan ay keentaa caddaynta arrintaasi Maxamuud Cali Yuusuf oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti ayaa bishii February ee sanadkan waxa loo doortay madaxa ururka midowga Afrika waxaana ururka xilkiisa uu la wareegay iyadoo khilaafiyo badan ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah qaaradda ururkana si weyn loo dhaliilayo isla markaasna la sheegayo in saameyn ballaaran uu salahayn laakiin uu ku egyahay oo kaliya inuu warbirtiyeed iyo warar uu soo saaro waa hagaag marka bal waxaynu eegaynaa sheeko xiiso leh oo waddanka Syria ee ku saabsan waxaa la leeyahay madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump socdaalka uu ku tegayo bariga dhexe waxaa aad u daneynaya inuu la kulmo Donald Trump madaxweynaha waddanka Syria Ahmed al-Sharax waxa kale oo dalbanaya in Maraykanku ay qaadaan cunaqabataynta shirkadaha Maraykankuna ay ka qayb noqdaan dib u dhiska waddanka Suuriya
sidoo kale xitaa soo saarista shidaalka iyo batroodka maraykanku saameyn uu ku yeesho hadda ka hor sheekaas waan idin soo gudbinay haddaba waxaan leeyahay axmed al-sharaac qorshayaal ballaaran buu wadaa oo ay tahay inta Donald Trump uu ku sugan yahay bariga dhexe inuu la kulmo waxa kaloo ka mid ah qorshaha dabaq loogu magac darayo Donald Trump inuu ka dhiso magaalada Dimashq haddaba sheeko xiiso leh oo arrintan ku aadan warbaahinta reer galbeedku ay baahinayso waxa ka waramaya wariyahayaga Yaxye Ciise warbaahinta Reuters ayaa soo xigatay ilo xogogaal ah oo sheegaya in madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaac uu doonayo in heshiis ganacsi uu dalkiisa la galo Mareykanka oo uu ku jiro dhismo dabaq ah oo laga dhisayo magaalada madaxda dalkaasi ee Dimashq kaas oo lagu qorayo Trump Tower ila wareedka ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan ay ka mid yihiin qodobada in Mareykanku uu helo fursad uu ku gaaro kheyraadka shidaalka iyo gaaska Suuriya in la yareeyo xiisadda kala dhaxaysa Israa'iil iyo in la iska kaashado arrimaha ka dhanka ah Iran Reuters waxay intaasi ku dartay in qodobadan ay qayb ka yihiin xeelad siyaasadeed oo madaxweynaha Suuriya uu doonayo inuu kula kulmo madaxweynaha Mareykanka inta uu booqashada ku marayo dalalka Khaliijka sida Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka taasi oo bilaabanaysa Talaadada Jonathan Booth oo u dhashay Mareykanka aadna u taageera Trump ayaa sheegay in 30 Abriil muddo 4 saacadood oo kulan la qaatay madaxweyne al-Sharaac magaalada Dimashq kulankaas waxaa ka qayb galay xubno kale oo Suuriyiin ah iyo kuwa ka soo jeeda dalalka Khaliijka Booth waxa uu sheegay in uu isku dayo in uu abaabulo kulankaasi taariikhiga ah inkasta uu yahay mid aad u yar fursadihiisa Jonathan Booth waxa uu yiri Sharaac waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhiso Trump Tower magaalada Dimashq waxa uu doonayaa nabad inuu kula noolaado dalalka dariskiisa waxa uu ii sheegay waa wax aad faa'iido ugu leh gobolka Israa'iil Booth waxa uu sidoo kale rajeynayaa in kulanka Trump iyo Sharaac uu ka caawin doono in la jilciyo siyaasadda adag ee maamulka Mareykanka ka haysata Suuriya sidoo kalena la yareeyo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Suuriya kulamo kale oo heer sare ah ila kale oo ku dhow arrintan ayaa sheegaya inay dhici doonaan kulamo heer sare ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Suuriya hase yeeshee waxay sheegeen inuusan dhici doonin kulan toos ah oo u dhaxeeya madaxweynayaasha labada dal dowladda Suuriya waxay codsatay in laga qaado cunaqabateynta ay Mareykanku ku soo rogeen xukunkii hore laakiin Mareykanku waxa uu qaaday oo kaliya talaabooyin tusaale ah sida in la dhaafo qaar ka mid ah cunaqabateynta bishii Maarso Mareykanku waxa uu Suuriya u gudbiyay liis ka kooban 8 shuruudood oo la doonayo in la buuxiyo si loo dhiso kalsoonida labada dhinac iyo suurtagalnimada in cunaqabateynada qaar la qaado shuruudahaas waxaa ka mid ah in la burburiyo wixii hub kiimika ah oo haray iyo in aan la siinin ajaanibta xilal sare oo dowladda ah bishii Abriil Suuriya waxa ay si rasmi ah uga jawaabtay shuruudahaas iyadoo sheegtay in ay badankood fulisay balse qaar ka kaleeto ay u baahan yihiin is-afgarad dheeraad ah oo Mareykanka ah dhinaca kale midowga Yurub iyo Ingiriiska waxay qaadeen talaabooyin ka duwan kuwaas oo ay ku jiraan in la qaado ama la hakiyo cunaqabateynada gaarka ah ee Suuriya sida cunaqabateynta saaran maaliyadda iyo midda tamarta ee Suuriya Yaxye aad buu mahadsan yahay markana bal aynu eegno dalkaasi Turkiga waxa lagu wadaa maalinta Khamiista ay soo socota in ay ku kulmaan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul wafuud ka socota waddanka Ruushka iyo waliba Ukraine inkastoo aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka uu san cadeyn in kulankaasi uu tagi doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddana waxa loo badinayaa inuu booqdo halkaasi si uu wadahadal toos ah ula yeesho madaxweynaha Ukraine Zelensky haddaba aynu eegno warbixin goordhaweyto ay soo tuurtay wakaaladda wararka dalka Turkiga Anadolu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muujiyay diyaar garowga dalkiisa ee ku aadan sidii lagu guuleysan lahaa kamara dhalinta marxalad kasta wadahadalada nabadeed ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Turkiga oo lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi Erdogan iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa qadka telefoonka caawa ku wada hadlay waxaana ay ka hadleen xiriirka labada dal arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga intii lagu guda jiray wicitaanka madaxweyne Erdogan wuxuu muujiyay muhiimadda ay leedahay in la helo rabitaan lagu bilaabo wadahadallo toos ah oo dhexmara Ruushka iyo Ukraine waxaana uu sheegay in Turkiga uu diyaar u yahay in uu bixiyo taageerada lagama maarmaanka ah dhammaan heerarka geedi socodka nabadda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada dalka Turkiga Erdogan ayaa waxa intaasi ku daray in Ankara ay diyaar u tahay inay martigeliso wafdiyada Ruushka iyo Ukraine si wadahadallo nabadeed loogu qabto gudaha dalka Turkiga wuxuu carabka ku adkeeyay in xabajoojin
ballaaran ay abuuri karto xaalad ku habboon oo lagu bilaabi karo wadahadallo nabadeed isagoo ugu baaqay dhinacyada dirirta ku lugta leh inaysan seegin daaqadan fursadda ee haatan jirta madaxweyne Zelensky ayaa ugu mahad celiyay Erdogan taageeradiisa iyo diyaar u ahaanshaha fududeynta dhanka diblomaasiyadda heerka ugu sarreeya isagoo tilmaamay in kulanka lagu qabanayo Turkiga uu noqon karo tilaabo weyn oo loo qaaday dhinaca soo afjaridda dagaalka waxa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in saaxiibadeenu ay xaqiijiyaan kormeerka xabajoojinta ayuu yiri Zelensky isagoo mar kale ku celiyay in Kiev ay diyaar u tahay wadahadal toos ah oo ay la gasho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin aniga iyo madaxweyne Erdogan waxaynu ku heshiinay inaan sii wadno dadaalladeena wada jirka si nabad loo xaqiijiyo ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisa madaxweynaha dalkaasi Ukraine waa hagaag goordha waxaan u gudbaynaa daawadayaal warar xiise leh oo dhanka Israa'iil ka imaanaya caawa maxbuuskii American Israa'iiliga ah ee la sii daayay ayaa waxaa la leeyahay caawa arrin weyn oo ceeb ku ah iyo yaxyax ku noqotay Netanyahu ayuu sameeyay dhinaca kale waxaa la leeyahay ergiga Mareykanka Steve Witkoff ayaa caawa wuxuu u dhiibay Netanyahu warqad toos ah oo ah dagaalka qasa arrin qusaysa maxay tahay arrintaasi sheeko xiise leh baan idin haynaa Donald Trump oo bilaabay safarkiisa bariga dhexe isagoo xilligan la sheegay inuu soo raacay diyaaradda u soo wada dalka Sacuudiga halkaasi oo berri u ka digi doono kulan weyn ayaa la filayaa in uu la qaato madaxda wadamada qaliijka ee uu booqan doono laakiin su'aasha la isweydiinaya waxa weeye miyuu booqan doonaa Israa'iil maxay tahay shuruudda uu ku xiray sheekadaas wayna soo socota generaal Israa'iiliya oo leh Israa'iil hoogi halaagba ku soo socda oo gudaheeda ka imaanaya ayuu leeyahay waliba intaan u gudbin macluumaadka naruuro iyo yiddiilo kataib al-qasam garabka hubaysan ururka Hamas sideynti ay sii deynayaan askariga maxbuuska ah u ahaa American Israa'iiliga waxyaalaha shuruudda ay ka dhigaan waxa ka mid ahaa in hal diyaarad aysan soo marin marka Gaza dhowr saacadood ilaa 4 saacadood ilaa 5 saacadood ayaa diyaaradihii la joojiyay kuwii duqeynta waday kuwii sahanka ahaa iyo kuwii loogu talagalay in ciidamada Israa'iil waardiyeeyaan weli waxa leeyahay Netanyahu xilligaas uu ka dhaga adeeg arrintaasi laakiin Mareykanka ayaa la hadlay oo canaantay oo yiri nin aad ku guuleyso inaad soo furatid ayaan soo deynayna si nabada jooji dagaalka dhowrka saacadood waxa kale oo ka faa'iideystay hay'adaha samafalka dhowr gaari oo sida gargaar ayaa wax u gudbeen dhanka waqooyiga Mareykanka Gaza gaar ahaan hay'adda UNICEF oo gawaaridaasi galbinaysay arrintaas dadka Falastiiniintu waxay u ahayd wax uun naruuro ah laakiin mar alaali markii maxbuuskii la soo daayay Israa'iil meeshiiba ka miistay madaaficda xilligan waxa la sheegayaa inay duqeynayso waqooyiga Mareykanka Gaza sidoo kale magaalada Gaza ayaa ka mid ah meelaha ay duqeynta ka wado Israa'iil dhinaca kale 550 saraakiil Israa'iiliyiin ah oo horey uga tirsanaa hay'adaha amniga Israa'iil ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo berri bariga dhexe booqasho ku tagaya in booqashadiisa uga faa'iideysto sidii lagu joojin lahaa dagaalka ka socda Mareykanka Gaza loona soo deyn lahaa dadka maxaabiista ee lagu haystay Mareykanka Gaza waxay sheegeen rajada kaliya ee dagaalkaasi lagu joojin karo oo qasaaraha iyo dhiigbaxa Israa'iil lagu joojin karo inay tahay isagoo dagaalka joojiya haddaba intaynu barnaamijkan ku jirnay warba hadda soo dhacay telefishinka Al Jazeera wuxuu ka soo xiganaya warbaahinta Israa'iil war sheegaya in Stephen Witkoff waa ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe caawa Netanyahu uu u dhiibay warqad dalbanaysa dagaalkan degdeg ku jooji Netanyahu ma aqbali doona mise waa yeeli doona taas waa isaga u taala laakiin waxa leeyahay indhaha ayaa loo shitay dagaalkan jooji maxaabiista la soo daayo xalay muxuu sheegay Netanyahu waxaan ka fakaraynaa inaan ka maarno kaalmada militariga barnaamijkii ka horeeyay wasiir ka tirsan xukuumadda Netanyahu wuxuu yiri annaga ma nihin xidigtii 51 ee calanka Mareykanka ku tiil macnaha gobol ka mid ah Mareykanka ma nihin way ilaa ognahay xidigaha calanka Mareykanka ku yaala waxay ka turjumayaan dabcan wad ka warqabtaan gobolada uu ka kooban yahay waddanka Mareykanka marka sheekadu meel adag maraysa waa yahay dhinaca kale telefishinka CNN ayaa wuxuu ka soo xigtay ila wareediye sheegaya in Donald Trump uusan booqan doonin Israa'iil hal shuruud buu ku xiray wuxuu yiri dagaalka dil la joojiyo oo la aqbalo xabad joojin Israa'iil soo booqanaya haddii kale Sacuudiga tagaya Imaaraadkan tagaya kadibna waxaan tagaya Qatar telefishinka CNN ayaa warkaas wuxuu ka soo xigtay saraakiil Mareykan waxa kale oo isna goor dhaw ta hadlay safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil Mark Huckabee wuxuu sheegay in si deynta Aidan al-Iskandar
وعسكري أمريكان إسرائيلي جها أي تهاي بلوغ نبات كدجال كقزة وحو باقي حماس إني سد دقة وسد سلمان محبست هرسن حالة قبل كأي أحمد كرعسن يدو أي سلمان ديراتنا كدبلوماسية ده oo Trump uu ku doonayo in looga gudbo caqabadahaasi dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goordhaweyta ka soo ambabaxay wadanka Mareykanka isagoo ku sii jeeda magaalada Riyadh ee dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia booqashadiisii ugu horeysay ee dibadda uu ku tagayo tan iyo markii dib loo doortay waxaana la sheegayaa in booqashadan si weyn looga dareemayo diyaar garowgeeda wadanka Sacuudiga xubno badan oo ganacsato ah ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin wafdigiisa bangiyada tiknoolajiyada shirkadaha diyaaradaha sameeya dabcan kuwii hubkan oo ku jiraan meesha waxa maraya ganacsi iyo lacag baa la kala qaadanaya golaha wasiirada Sacuudiga waxa la leeyahay oo hogaaminayo dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman waxay si rasmi ah iskugu diyaarinayaan soo dhaweynta booqashadan oo lagu tilmaamay wasiirada loo dhigay xiriirka adag ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Sacuudiga madaxweynihii ugu horeeyay ee Sacuudiga booqda ee Mareykanka wuxuu ahaa Richard Nixon 1974 waxa ka dambeeyay dhammaan madaxweynayaashii kala badankooda sida Jimmy Carter, George W. Bush kii weynaa, wiilkiisii George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden iyo Donald Trump oo isaga muddaxileedkiisii hore tagay Sacuudiga 2017 imikana waxa leeyahay mar kale ayuu halkaasi tagi doonaa waaya qodobkaasna halkaas aynu ku dhaafno waxay noo soo socotay sheekada ku saabsan diyaarad mise qasri baan ku tilmaamnaa wadan Carabeed ayaa hadiyad waxay u siinayaan Donald Trump sheekada ugu dambeysay barnaamijka ayaan kugu haynaa sheekadaas laakiin markan gudaha Israa'iil aynu ku laabano general kamida generalada aadka u dhaliila Netanyahu ayaa waxa la leeyahay wuxuu ka hadlay dhibaatada Israa'iil ku soo fool leh sheekada waa noo soo socotaa maxbuuskii la sii daayay Netanyahu uu ku sameeyay laakiin sheekada aan ku hormarna generalkan wuxuu leeyahay Israa'iil waxa ku soo socota masiibo aad culus oo waliba gudaheeda ka imaanaysa haddaba warbixintan waxa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacade General Isxaaq Barig oo muddo ku soo jiray ciidamada Israa'iil ayaa shacabka ugu baaqay in ay wadooyinka isugu soo baxaan si ay isbedel uga keenaan xukuumadda hadda jirta isagoo ka digay halis gudaha ah oo khatar ku ah jiritaanka Israa'iil taasi oo uu ku sheegay inay ka daran tahay Xamaas iyo cadow kasta oo dibadda ah maqaal lagu daabacay wargeyska Haaretz ee Israa'iil ka soo baxay ayaa ka dhaliyay dood xoogan gudaha Israa'iil gaar ahaan siyaasiyiinta iyo ciidamada dhexdooda General Barig ayaa horey u soo qabtay xilal sare sida kormeeraha dacwadaha ciidamada waxana uu si kulul u weeraray hoggaanka siyaasadeed iyo kan military ee Israa'iil isagoo uu ku eedeeyay in ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah isla markaana ay ciidamada u adeegsanayaan ajendayaal siyaasadeed oo ku dhisan fikrado badbaado sheeganaya iyadoo oo la dayacay waxa uu ku sheegay amniga qaranka hogaamiyaasheedu waa kuwa aan garasho lahayn waxay u horeeyaan nolosha askarta iyo maxaabiista si ay u fushadaan danahooda gaarka ah ayuu Barig ku qoray maqaalka isagoo ugu baaqay shacabka in ay kacaan isla markaana sheegay in badbaado aysan ka imaan doonin hoggaan xukuumadeed balse laga filan karo oo kaliya shacabka uu istaaga Barig waxa uu sawiray mustaqbal madow uu arko in Israa'iil uu sugayo haddii dagaalka Gaza uu sii socdo waxa uu xusay dhimashada maxaabiista ku jirta godadka Gaza korarka tirada askarta dhimanaysa iyo kuwa dhaawacmaya iyo fashilka ciidamada Israa'iil ee ah guul inay ka keenaan dagaalka generaalku waxa uu ka digay sida uu hadalka u dhigay burburka awoodda Israa'iil ee ka hortaga cadawga gobolka sida Iran Xisbullah iyo Xuutiyiinta sidoo kale hoos u dhaca xiriirka Mareykanka gaar ahaan haddii xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleysto doorashada taasi oo keeni karta in la joojiyo gabi ahaanba taageerada military Barig waxa uu saadaaliyay burbur dhaqaale iyo jahwareer xoogan oo laga yaabo inuu keeno dagaal sokeeyo iyadoo hay'adaha muhiimka ah ee dawladda ay burburi karaan laga bilaabo waxbarashada caafimaadka ilaa militariga waxaan nahay ehel doqonnimo ku sugan waxaan ku noolnahay ka faa'iideysi iyo dayac haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto burbur ayaa hubaal ah xukuumad kasta oo kale waxay ka fiican tahay tan qiyaaliga ah ee maanta maamusha Israa'iil ayuu yiri General Barig ugu dambeynna maqaalkan ayaa noqday mid si weyn looga hadalhayo gudaha Israa'iil iyadoo dadka qaarna ay u arkaan digniin dhab ah halka kuwa kalena ay u arkaan olole ka dhan ah xukuumadda hadda talada haysa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka intaan u gudbin gudaha Israa'iil wararka imika naga soo gaaraya waxa kamid ah oo sida warbaahintu ay sheegayso askarigii maanta ay sii daayeen xoogagga iska caabinta Falastiin ee American Israa'iiliga Aidan al-Iskandar ayaa markii caawa uu ku laabtay
gudaha Israa'iil ayaa waxa la sheegay Netanyahu inuu dalbado inuu la kulmo waa diiday wuxuu yiri ma kula kulmayo inaan ku arkana ma doonayo mana kula kulmayo Netanyahu warkii waa loo sheegay yaab waa ninkii maanta uu lahaa waxaan ku soo deynay cadaadiska iyo culayska aan saarayno Xamaas arrinta marka gudaha Israa'iil waxay ka dhalisay dood dadkii baraha bulshada hadlay waxa leeyahay maxay tahay waxa aad ku soo deysay cadaadiska iyo culayska 20 bilood ayaa waxaan maalin kasta nagu haysay waxaan soo furanaya dadka la haysto waan soo deynaya laakiin Donald Trump ayaa soo daayay ninkaas sababta loo soo daayayna waa dhalasho Mareykan ma la soo daayaa leeyahay kuwa kale meesha lagu haysto ninka marka waa diiday kula kulmaayo yiri isla bari waxa la sheegay inuu socdaalo wadanka Qatar uu tagayo halkaasna uu kula kulmi doono Donald Trump iyo Ameerika wadanka Qatar sida wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan waaya marka waxaan u gudbaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka sheeko xiiso leh barnaamijka caawida kugu haynaa Donald Trump bariga dhaxay tagaya laakiin waxa la leeyahay hadiyad ayaa wax u diyaarisay dowladda wadanka Qatar gaar ahaan Ameerika wadanka Qatar hadiyadu waa diyaarad laakiin hada diyaarad caadi ma aha ogow ma qasri ba masoo diyaarad horta intaan bay la agtahay waa laba dabaq waa diyaarad point ay samaysay 400 milyan oo dollarka Mareykanka ay joogtaa qiimaheedu hadaan ku celiyay mar kale 400 milyan laakiin gudaheeda markaad eegto si halkan ka muuqata طبعا waa qasrigii boqortooyada waxa diyaaradan loogu magac daray qasrigii samada ku socday qaybta lagu shiro waxay leedahay oo kale qaybo kale oo intaad fariisato oo buuq iskaga soo tagto TV-ga iskaga daawanayso qolkii shirarka ay leedahay jiifkii bay leedahay goobihii lagu qubaysanayay bay leedahay dabaashii bay leedahay goobihii cuntada lagu karinayay bay leedahay goobihii cuntada lagu cunteynayay bay leedahay isgaarsiinteedii bay sidataa internetkeedii bay sidataa haddaba sheekadaas marka hadda aynan waxay laga qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu gudoomo diyaarad kamid ah diyaaradaha adduunka ugu qaalisan oo ah diyaarad raaxo oo nooceedu yahay Boeing 747-8 qiimaheedu waxa la sheegay inuu yahay 400 milyan oo dollar waxa la sheegayaa in qoyska boqortooyada wadanka Qatar diyaaradan ay u qorsheen in madaxweynaha la siiyo waxa la leeyahay waxay u bedeli doontaa Donald Trump diyaaradda US Air Force One oo haatan uu isticmaalo laakiin waxa la leeyahay marka xukunka uu ka dago waxa lagu wareejin doonaa maktabadda madaxweynenimo ee Trump dood adag ayaa ka dhalatay arrintan waxa la leeyahay diyaaradan oo loogu magac daray qasriga cirka dul heehaabaya ama cirka dul socda ama hawada socda ayaa waxa la leeyahay waxa dood ka keenay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta wadanka Mareykanka oo waxay leeyihiin arrintan waxay ka hor imaanaysaa qodob dastuurka Mareykanka ku qoran oo ah in ay mamnuuc ka tahay madaxda Mareykanka inay aqbalaan hadiyada ka yimaada dowladaha shisheeye laakiin Trump waa Trump uu difaacay wuxuu leeyahay heshiis daahfurnaan ah oo cad ayaan diyaaradan ku gudoomi doonaa wuxuu leeyahay inay faa'iido u tahay wadanka Mareykanka inkastoo go'aanka ugu dambeeyay ee wareejinta diyaaradan weli la sugayo laakiin haddana dood adag ayay ka dhalisay gudaha wadanka Mareykanka waaya arrinta marka xitaa baraha bulshada carabta waxay ka dhalisay dood aad u adag qaarkood waxay leeyihiin Ahmed al-Sharac magaalada Dimashq wuxuu rabaa inuu ka dhiso dabaq weyn oo loo magac dirayo Trump Tower dhankan qadarna hadda diyaaradaas u hibeynaysaa Sacuudigana hadda yaa og malaha dee horta seefta dahabka waa iska caadi Sacuudiga maxaa loogu diri doonaa baa la isweydiinayaa marka malaha dee cigaal waxa la siin doonaa dahaba waynu arki doonaa marka ninkii Trump waxa leeyahay waxaas buu jeedaa waa sababta Israa'iil ay u leedahay Trump Israa'iil wuu iibsaday sheekadaas waa sheeko xiiso leh barnaamijyada aan idin soo gudbinay ku jirtay intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaya barnaamijka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin mar kale daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa